maanta way taariikhdu tahay 6 Sebtembar 2017 golaha wasiirada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa yeeshay kulan aan caadi ahayn oo uu shir gudoominayay ra'iisul wasaaraha xukuumadda mudane xasan cali khayre arrimaha kulanka looga hadlay ayaa ahaa arrimaha amniga qaranka iyo dhacdadii sarkaalka jabhadda hubeysan ee ONLF golaha ayaa ugu horreyn warbixin ka dhageystay hay'adaha amniga ee la xiriira xaaladda amni ee dalka guud ahaan gaar ahaan dhacdadii sarkaalka jabhadda hubeysan ee ONLF waxayna sheegeen inuu abaabulayay falal lid ku ah amniga dalka oo in muddo ah ka dhex waday dalka gudihiisa xiriirna ula lahaa kooxaha argixisada ee al-shabaab warbixinta amniga qaranka kadib ayaa ra'iisul wasaaruhu wuxuu ka codsaday golaha wasiiradu inay ka doodaan falanqeeyaan eegaana dhanka siyaasadda iyo dhanka sharciga guud ahaan wasaaradda cadaaladda ayaa warbixin dhanka sharciga laga dhageystay oo goluhu ka siisay ku aadan habraacyada muhiimka ah ee sharciga dalka iyo heshiisyada hore oo ay wada galeen dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladda federaalka Itoobiya golaha waxaa la hor keenay nuqulka heshiisyo ee dowladda federaalka Soomaaliya hore ula gashay dowladda Itoobiya 7 Juun 2015 kaasoo dhanka Soomaaliya oo u saxeexay wasiir dawlihii markaas madaxtooyada jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya xildhibaan maxamed salaad ee dowladdii madaxweyne xasan sheekh maxamuud heshiiskan ayaa u aqoonsanaya kooxaha hubeysan oo ay ka mid yihiin al-shabaab iyo jabhadda ONLF inay khatar ku yihiin amniga labada dal meelna looga soo wada jeesto oo labada dal iska kaashanayaan si wada jir ah waxaa sidoo kale la hor keenay golaha wasiirada heshiis la saxiixay 2 May 2016 oo ay dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladda federaalka Itoobiya ku heshiiyeen in ay si wada jir ah isaga kaashadaan la dagaalanka nabaddiidka iyo argagixisada si loo xaqiijiyo sugidda amniga iyo xasiloonida labada dal heshiiskan isaga ah 2 May 2016 waxaa markaas dowladdii federaalka u saxiixay wasiirkii hore boostada isgaarsiinta mudane maxamed jaamac mursal geelle iyo mudane cabdikariim xuseen guuleed qodobada heshiiskaas oo kuwa ugu muhiimsan ay ahaayeen in si buuxda aan isaga kaashanno la dagaalanka iyo ciribtirka kooxaha argixisada ah gaar ahaan al-shabaab iyo ONLF dood dheer kadib golaha wasiiradu waxay go'aamiyeen arrimahan kow in siyaasadda dowladda federaalku ay tahay mid ku qotanta iskaashi dalalka geeska afrika ah xoojinaysana nabad ku wada noolaanshaha mandaqadda xoojinta dhaqaalaha iskaashiga iyo amniga isla markaasna aan jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya loo ogolayn in jabhado hubeysan ama kooxo argagixiso ah ay gabaad ka dhigtaan labo golaha wasiiradu waxay hoos ka xariiqeen in shakhsigani uu ahaa sarkaal sare oo ka tirsan jabhadda hubeysan ee ONLF isla markaasna uu falal lid ku ah amniga dalka uu ka dhex waday geyiga Soomaaliya iyo mandaqadda iskaashi dhowna la lahaa kooxaha argagixisada ee al-shabaab dowladda federaalka Soomaaliya waxa ay diyaar u tahay inay kaalin firfircoon ka ciyaarto wax walba oo ka qayb qaadanaya nabadeynta mandaqadda si waafaqsan dastuurka iyo shuruucda dalka dowladda federaalka Soomaaliya waxay garowsan tahay doorka ciidamada wadamada dariska ah ee Djibouti, Kenya, Ethiopia, Burundi iyo Uganda ay si hagar la'aan uga garab dagaalamayaan ciidamada qaranka Soomaaliyeed si dalka loogu soo dabaalo xasilooni waarta afar goluhu wuxuu mar kale hoos ka xariiqay heshiisyadii iskaashi ee dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladda federaalka Itoobiya ay kala saxiixdeen sida heshiiskii 7 Juun 2015 iyo heshiiskii 2 May 2016 oo tilmaamaya in dhan looga soo wada jeesto arrimaha amniga iyo nabad ku wada noolaanshaha mandaqadda heshiisyadan waxay si cad u qeexayaan kood in cadowga labada dhinac ee al-shabaab iyo jabhadda ONLF ay khatar ku yihiin amniga labada dal meelna looga soo wada jeesto oo labada dal iska kaashadaan si wada jir ahna ula dagaalamaan shan waxaa reeban isla markaasna mamnuuc ah in jamhuuriyadda Soomaaliya gudaheeda ay kooxaha argagixisada iyo kooxaha hubeysanba ka dhigtaan gabaad ay dagaalada iyo colaadaha ka horinayaan oo ay kaga duulaan wadamada jaarka ah lix dowladda federaalka Soomaaliya waxa ay ka qaadi doontaa tallaabooyin cadcad oo sharciga waafaqsan cid kasta oo isku dayda inay jabhado hubeysan ka dhex abuurto dalka gudihiisa ama ay taageeraan kooxo argagixiso ah iyagoo maleegaya falal lid ku ah dalka gudihiisa ama iyo wadamada jaarka ah toddobo qodobka ugu dambeeya xukuumadda federaalka Soomaaliya waxay dib u eegis ku sameynaysaa heshiisyadii ay dowladdii hore gashay si qabyatir loogu sameeyo wixii daloolooyin ah ee ka jira haddii ay jiraan loona waafajiyo habraaca sharciga ee dalka dhammaad aad iyo aad u mahadsantihiin